bilihii ugu dambeeyay waxaa magaalooyin ku yaala bartamaha Soomaaliya ku soo badanayay badeecooyin ganacsi oo ka imaanaya dalka Itoobiya waxaana ganacsigaasi ka mid ah qalabka dhismaha shidaalka iyo qaar kale meelaha sida weyn looga dareemayo ganacsigaasi ayaa waxaa ka mid ah magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug magaalada Cadaado ayaa bilooyin ka hor waxaa qalabka dhismaha iyo shidaalkuba uga imaan jireen dalal fog balse ganacsatada ayaa tilaabadan u arka fursad ganacsi oo uga dhow wadamadii ay markii hore ka dalban jireen badeecooyinka Nuur Xuseen Khayre oo kamid ah ganacsatada Cadaado ee shamiitada uga timaado Itoobiya ayaa ka waramaya Itoobiya waxa nooga yimaada sibirka ayaa nooga yimaada anaga maadaama shaqadeena ay tahay dhismaha markii hore wuxuu nooga imaan jiray dekada Boosaaso nooga imaan jiray nooga soo degi jiray marka hadda wuxuu nooga yimaadaa si ilaa intii muddo 5 bilood sidii isbedelka uga dhacay geeska Afrika dalka Itoobiya nooga imaanay sibir wallahi waa dareemi kartaa waxa weeye sibir meel dheer ka yimid oo wada dheer soo maray iyo sibir meel dhow ka yimid sibirkan waxa weeye warshadii hadii baabuurku ka soo qaado halkaan buu keenaa baabuur waxa weeye ma qaata laba habeen wax saas ayuu soo soconaya marka aad iyo aad kana qiimo jaban Salaad Cabdi Cali oo kamid ah ganacsatada magaalada Cadaado ee shidaalka ka keena dhanka Itoobiya ayaan weydiiyay farqiga u dhaxeeya shidaalkan Itoobiya iyo shidaalkii meelaha kale uga imaan jiray bismillaah Cabdi Xasan Awoowe annaka ka isbar baarti ahaan dhinaca Itoobiya waxa nooga yimaada shidaalka Itoobiya nooga yimaada waa shidaal aad u tayo fiican dadkuna ay aad u amaanaan aan uga raysanay shidaalkii fuustooyinka midda kale waxa la yiraahdaa dadka oo baabuureyda si aad iyo aad u amaanaan oo waxay yiraahdaan aad iyo aad u fiican yahay dhinaca kale waxaa jira badeecooyin ganacsi oo laga dhoofiyo deegaano ku yaala bartamaha Soomaaliya isla markaasna loo iibgeeyo dalka Itoobiya waxaana ka mid ah cusbada ama milixda oo ka baxda deegaanka Xinladi oo 150 kiiloomitir dhanka bari ka xiga magaalada Cadaado milixda ayaa bilay ugu dambeeyay si xawli ah lagu safrinayay dalka Itoobiya taasina waxay shaqo abuur u noqotay dadka ka xoogsada soo saarista milixda iyo gaadiidka qaada intaba sidaas waxaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay Nuur Maxamuud Bood oo ka mid ah dadka ka shaqeeya suuq-geynta iyo dhoofinta milixda deegaanka Xinladi cusbadiisu aad iyo aad hadda u fiican tahay cusbada horta Itoobiya loo raraa dhaqaale fiican hadda ganacsatada ku qabaan deegaanka hadda horumar fiican xagga shaqada iyo wax soo saarkeeda aad u fiican tahay dhulkan hadda baabuurta Itoobiya toos uga timaada baabuurka Itoobiya toos uga yimaada Xinladi u taga caqabad weyn jirta waxa weeye waxay rabaan dadkan cusbada waxa lagu soo saaraa qalaba lagu soo saaraa badeesha kamida waxa kamida kaariyooniyaal loogu talagalay oo aan daxashu qabanin oo maaragtay oo cusbada loogu talagalay in lagu soo saaro waxa kamida qalab faraha la gashto waxa kamida qalab lugaha la gashto waxa kamida yaani in waa dad gacmo u laaban yihiin oo kale waxa ay soo saaraan hadda Itoobiya maamulkeedaas hadda iibsato dhanka Itoobiya ku socdaan hadaan maaragtay ishaas u sii socoto waa wax fiican oo horumar laakiin shirkad kale Soomaaliyeed ma jirto oo ama warshadeeda wax warshadeeya loo baahan yahay Cabdi Xasan Awoowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado